maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay bilaabayaan canshuurta laga qaado xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir markale Axmed Maxamed Ibraahin ayaa dhameystiraya qodobkan Xuseen Maxamed Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir dhanka maaliyadda ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan canshuur aruurin lagu sameynayo guryaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho canshuurta ay ku sheegeen wax badan lagu qabanayo shacabka Soomaaliyeed haday ay bixiyaan isla markaana ay arki doonaan wax qabadka lacagaha laga qaaday waxaan bilaabi doonaa dhawaan hadii la yiraahdo ayadana aan daafur doonaa in aan bilaawno canshuurtii guryaha oo iyaguna xafiisyo ku yeelan doona degmooyinka oo dhan si loo fududeeyo in degmo kasta dadka degan iyo guryaha ku leeyihiin ay iska diiwaan galiyaan kuna bixiyaan xuquuqda lagu lahaa taas waxay fududeynaysaa in dakhliga ka soo gala gobolka Banaadir degmooyinka in dib loogu celiyo si loo horumariyo degmada aan xoogga saari doono in aan isku tashano aan awood u yeelno in dakhliga aan rabno inaan ku horumarino magaalada Muqdisho inaan ka soo saarno dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho kana waa bilowga u koowaad waartan waxa daa roobab wadooyinka way naga xirmeen sadaan dakhli la abuurin suurtagal ma noqon doonto inaan biyahaas iyo wadooyinkaas aan qaban marka waxaan xoogga saaraynaa in aan dakhli anagu aan leenahay oo ahay mid aan dibadda ka tuugsanay inaan soo saarno si aan horumarkii magaalada u baahnaa u gaarno insha Allah waxaan rajaynayaa waxqabadka maanta bilowday inuu noqon doono mid mar dhala macnaheeduna ma noqon doonto inaan wax furno oo ka tagno waxaan ku sameyn doonaa dabagal joogto ah dadkuna waxay ka noqon doonaan marqaati wax kasta oo aan furnay insha Allah waxaan ku sameyn doonaa inaan dib u soo fiirno shaqadii aan furnay inay seed ku socoto inay faa'iido dhashay dadweynaha aruurinta lacagtan iyo maarintooda ay shacabka Soomaaliyeed walaac ay ka muujiyeen maadaama ay sheegeen in ay burbursan yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho halka qaar kalena ay biyo dhigeen roobabka maalmihii dambe ka daayay gudaha magaalada Muqdisho